السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا maalinteena saddexaad ee ramadaanka. maanta waxyaabo badan aan sameynay maasha allah. marka intii aan ka gaaray waa idiin soo duubay. waxaan ka bilaabnay horta number 3 inaan meeshaas lagu dhajiyo, kadibna gift bag la socda number 3 yaa lasoo qaban doonaa. sida ogtihiin anaga home educators aan nahay ama ilmaha guriga wax ku bartaan. bishaan waxaa muhiim noo ah in badan wax ka barana diinta islaamka. maalin walba wixii aan baranana waxaan ugu qoraa boog aan ku qoray ramadaan 2024 insha allah. markii ramadaanka dhamaado ana idin tusi doono boogaas. hadda maalinta saddexaad aan maraynaa. ilmaha markii aan rabo inay diinta islaamka bartaan waxaan jeclahay in ilmaha si qaab farxad ku jirto, qosol ku jiro, wanaag ku jiro in wax lagu baro. maanta waxaan baranaynaa magacyada ilaahay saddex kamid ah, tiirarka iimaanka, iyo waxaan baranaynaa ramadaan. what is ramadaan? okay, ilmaha marka nacnac iyo wax marka la siinayo waxyaabaha fiber kale aan ku hormariyaa, sida hadda arkaysa timirta iyo buskudkaas, cheese kale. kadib waxaan u akhrin doonaa what is ramadaan. ramadaan waa maxay? ramadaan waa bishee nambarkay ka tahay bilaha islaamka. bilaha islaamka waa maxay magacyadooda? youtube-kana waa soo gelina anagoo maaragtay bilaha islaamka kusoo celcelinayna. kadibna waxaan kusii daba qabanay library-ga. maanta oo kale waxaan sameynaa reading challenge ama reading group wax la dhahaya aan la sameynaa librarianka. aad u fiicanta ilmaha home educators markaad tihiin in ilmihiin library-ga contact fiican la yeelataan. sida arkaysa boog walbaba level uu leeyahay. boogan hadda waa level 2. buugaagta marka level 1 aan kasoo bilaabnay, hadda level 2 ilmaha qaar la maraynaa. ilmaha qaarna level 2 way dhameeyeen, waxaan maraynaa story books. ilmaha qaar waxaan la maraynaa picture books. ma fahantay? ilmaha da'diisaba meeshay maraysa buugga ku haboon loo akhrinayaa. maasha allah, anigana waan u akhriyaa in badan. kanoo kale kamid ah story bookska. waa boog ma aragtay sidaas oo kale u qoran, xoogaa textka way isku yaryaryihiin, picture kuma dhigana. ilmahaaga marka adiga ay ku daawanayaan, waxa adiga samaysa way kaa daba sameynayaan. isku day marka in badan in adiga samaysa ficilada iyaga ka rabto. waa kuwaas hadda ayadoo meesha fadhida la akhrinaysa maasha allah. storieska aad u jecel yihiin. aniga marka guriga imaano cashayna kadib waxaan u akhriyay boogga nabiga sallallahu alayhi wasallam. qaybtan waxay ka hadlaysaa aadaanka. kadibna youtube-ka waxaan ka helay video yar mataqaanaa aadaanka marka ugu horeysa oo bilaal calayhi salaam lagu dhahay, nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhahay orad no adin. marka videogan aan tusay aadaankii dhageysteen. inkastoo aadaanka maalin kasta maqlaan, haddana xaggee ka bilaabatay booga diinta islaamka ku qorantahay dhinaca nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ku qorneed in bilaal oo ahaa qofka ugu horeeyay oo adimay. marka taasna waa tusay. waa mahadsantiin. haddaan ugu cusubtahay ha ilaawin inaad na soo follow garayso.